rabaa inaan idinka mahadceliyo ajiibidii aad soo ajiibteen kasoo qaybgalka madasha maanta loogu talagalay tabarucaadkana loogu samaynayo Confederation of Somali Community of Minnesota waxaan dhammaantiin idinku leeyahay jasaakum allah ilaahay ajriga xasanaadka idinka siiyo ulkaaritaanka aad u istaagteen jaaliyadiina iyo ajiibidda aad soo ajiibteen yeeritaankii aan idinkiya waxaynu ku bilaabaynaa sidii caadada inoo ahayd aayadaha qur-aanka kariimka ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Somali waxay tiraahdaa warfoolku ku yaala marka hore waxaan rabaa inaan idhaahdo walaalayaal waqtigii ugu wanaagsanaa Minnesota wadarkeeda ma aha waad isu soo xilqaanteen waana timaadeen waxaan rabaa inaan idhaahdo on behalf of boardka CSM ama Somali Confederation waa mahadsantihiin waddankan sida uu yahay iyo xaaladiisa waxa ay tahay Confederation oo maanta ahayd hooyadii sida u dhigay Cabdiraxmaan organizationada ka jira Minnesota haddii aan dhihi karo weliba stateska kale ay kusoo hirtaan si ay uga qaataan macluumaadka amaba ay uga qaataan si ay iyaguna uga kaameeyaan meelaha ay joogaan bulshada ama uga caawinaan ama uga shaqeeyaan Confederation waa one of the organizations strategiga oo maxaa yiraahdaa dhaqaalaha waddankan siduu u egyahay qayb ka noqotay waxaan u maleynayaa ummadda Soomaaliyeed inaanay aqbalaynin organizationkoodii left and right u caawinayay aan lahayn maxaa yiraahdaa maalin iyo habeen day in and day out u taagnaa arrimaha Soomaaliyeed gobolka Minnesota in maxaa yiraahdaa ay maanta idinka shalay isagu organizationku ahaa wixii caawinayay community-ga maanta waxay u taalaa ummadda maxaa yidhahda ku dhaqan Minnesota inay iyaguna kaalintoodii ay maanta taagan horta inagu isbari baynu nahay mise Somali community baynu nahay Somali baa Soomaha Confederation of Somali Community yaale indihiina halaga gartay inaad leedihiin Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. walaalayaal waa idin salaamay salaan kadib waa mahadsantihiin intiina kasoo qayb gashay shirkan inkasta oo in badan oo kale lasoo lagu wargeliyo shirkan kasoo qayb gala si aynu uga tashano xaaladda community-gan Soomaalida ay ku sugan tahay ama waxyaalaha ay meelaha ay haysanayso intiina timid aad iyo aad baa mahadsantihiin inta kale inay sii gaari doonto oo media ku gaari doonto fariintu waa wax la sugayo organization kala jira oo Soomaaliya halkan ka furatay waxaan xaqiijinayaa anoo been sheegno uu ka sheegay in wax badan isaga Saciid iyo Secretary u qabtay organizationada kale oo la shaqeeyay u soo kobcaan oo asaas u yeeshaan qof kasta oo Soomaaliya wax dhibaato la kulma hadduu ka warqabo ninkan iyo organization-kan xiriirtoos ula sameeyey wax badan buuna kala qabtisaan hubaan marka xoogod mar hore boorkan ku jiray war chairman ka ahaa marka boorkan ku jiray inkastoo hadda retire waxaan qiyaasi karo maaha organization-kan waxa u qabtay dadka Soomaalida iskuulaad baa jira la sameeyo charter schools leeyahay qayb ka ah meel kasta laga sameeyo oo Minnesota si kasta loo dhiso ama loo hagaajiyo community-ga meelaha ay reeraysan samaysatay qof kasta oo qoraal sax ah oo mid daayso u baahan isaga un baa ku xirnaa oo la jiray ama la sameeyay intaas aad iyo aad baan u mahadinayaa personally Mr. Dr. Said Fahiye iyo soo qabtay on behalf of the Alcohol School of Abdurrahman oo ka magacdheer Falateedin aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Confederation-ku runaatii shirkana ma sugan galeen advertisement-kiisa waxkasta la-aantiis
federationka oo kale waxay muhiim u tahay meeshii waxay matalaysaa Soomaaliya geedka hoostiisa la isugu imaan jiray oo dadku ay isugu caawin jireen oo dadku isku saacidi jireen marka caafimaad dadweynaha ahaanka waxay muhiim u tahay inuu ururkan furnaado oo si muhiim waxay u tahay inay dadkeena lahaadaan meel kusoo yidaan meel ay isugu imaadaan meel ay ama ku cabtaan ama xitaa ay ururkoodii waxooda lagu xaliyo as organization ahaan markii dad waddankaan la imaado dad badan oo organizationo badan oo cadaan ah inta Soomaalideena u shaqeeya oo kala garay inay noo shaqeeyaan oo noqonay bariiskooda iyo hilibkooda faa'iido uguma jirto Somali community oo kale inay soo kacaan sababtoo haddii soo kacaan ay dadkooda soo kacaan ayay wax loo qabanayo haddii policy noqoto iyagii loo doodayaan waxaa xasuustaa inaan dad bariiskoodii shaqaysanayo ku hoos qaadan oo dhehayno dad madow aan nahay dad qaxootiyaana laakiin annaga waa naqaanaa dadkeena sida wax loogu qabto oo qofna yuuna matalin marka arrintan ma ahan arrin keliya ma Soomaali community lacag ma siinaynaa ma ahan arrintan waa lafdhabta lagaa jebinaya adigoon ogeyn sidii kansar camal ay kugu fidayo haddii dadkeena magaalada joogo qof walba waa sida dadka sheegeen qof walba uu la soo gurguurto $20 bishii ama electronic automatic inta website uu lacag meesha ugu shubo $20 waxay taa male $30 waxay taa male $50 waxay taa male laakiin ku xisaabta konton kun oo qof ama 10 kun oo qof hadduu bishii $50 bixiyo communitygan uma baahna organization kale inay wax siiyaan waxaa ku xisaabtaa Soomaalideena cariyo ku jirta gobolnimadeena cariyo ku jirta caafimaad ahaan dadweynaha cariyo ku jira because annaga taariikhdan fiirinayna deeradaan fiirinayna dadkan waa baaba'san marka waxaan ujeedinaha tan waa feminista ugu dhifaysay waa yaa ilaaha laga ridin aan isku dhimaano and xada isku dubnaano and then arrin future عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أصحابه بيوقي سبتا صدق دي بيقول وإنتينا تبدأ مجموعة متعلمين نوع ضياع شدتكم من عليك عن كل يوم نوع علماء وتذكر حتى مجموعة أشياء فهمهم حدي عن وحده لنا تسوع اليوم هم تحدى عنه عنه community kan maanta aan u imaanay meesha aan ugu imaanay waa waxyaalaha ay qabtaan waxaa ka mid ah kulli nin walba uu og haddii uu dadka xirmo ayagaa loo ordaa haddii wuxuu ahaa ay aad qabto xaas aad ka fiirsato muxuu ahaa Africa ayagaa loo ordaa oo waxaa la yidhaahaa balcadeenkeed haddii wiil aad ka fiirsato ayagaa loo ordaa waxaa la yidhaahaa فإنا ويل هذا شيء المهني بابا واحد بالبالي كنت تحط واسطة لما كان فرس واحد ما بالبالي كنت لا وهو يوم ما في ملا عم تاني رواية ما كاس رواية مالي ملا عم تاني رواية بموت دي ما كاس فكريم يشتاقو تري أي رواية قبل سفيا لنا خير الله سيء قبل ساعات يا عاوزي بيجي تعود ركاب من وقت دواتو سيكون البيت وحيونا مبادئ تعالوا نقولها فتقولتي وحسن المالي على كاسكاي سعيد المالي حتى نقولها حتى يقول هل دولار كي يعمل تطوات البادري تطوات الصومالي هل دولار حتى بدينا بدينا نتوالى عنه كموتي يعمل بادين وطرم تحتي عن صور ما تي عن حاجة كسر وضوء حتى عن ربيع عن صور وضوء عن كموتي عن صور الله Orta Somali lambar wabati hataan video saddex meel qofta lambar wabati abaarti lambar wabati ku tihiin madaxdi imaanaysa lambar wabati ku tihiin haddii dadka la xiro oo dadka hoosta laga dhoofiyo lambar wabati ku tihiin kumutiga lambar wabati kumutigan horta wax ilmaha Soomaaliya badbaadiya waa masaajid iyo kumutiga مساجد محمد مساجد كوحان كوحسانية سعيد إنها مساجد الكيسان أو حقبت كيسي محاعة شيكان دكا حيحنا شيكان دكا أمد بادية شيكان إنت إما أمد بادية شيكان كموتنا مساجد كينا عن وحبوا أبو مساجد
marka waxaan rabaa inaan ka hadlo siduu Siciid Faahir noo caawiyey iyo la'aantiis inay abaar ahaan lahayd waxaan halkan ku kulannay 2007 dhammaadkeedii aniga iyo ilaa 15 hooyooyin baan ahayn 2 waalid oo aabaan u jiray marka waxaan la yaabanayn waxa ilmahayaga autismka iskuullada ugu badiyey maanaan aqoonin cudurka waxaan hore u aragnay maanaan u ahayn Siciid baan u nimid anagoo xanaaqsan ooyeyna isku dhex yaacsan marka Siciid wuxuu noola hadlay si waalidnimo wuxuu noola hadlay si walaaltinimo wuxuu noola hadlay si soomaalinimo hadalkayagii ayuu wuxuu ka dhigay conversation hadalkayagii ayuu wuxuu ka dhigay qiimo ayuu u yeelay qaayo ayuu u yeelay meel kastuu nala tegay isaga la'aantiisna autism maanta ilaa iyo Congress ilaa iyo White House-ka ilaa iyo American Public Health ayaa autism Somali community-ga maqashay la'aantiis Siciid ma ay noqoteen gantaay Soomaaliya ma hadlabad wuxuu ahaa the wind beneath our wings wuxuu ahaa the backbone of our story wuxuu ahaa the compassionate person wuxuu ahaa the caring person wuxuu ahaa the voice of reason wuxuu ahaa qofkii PhD-ga watay Soomaaliga ahaa ee markaan ama wasaaradda caafimaadka u tegayno ama Center for Disease Control Atlanta u tegayno ama White House-ka warqad u dirsanayno qofkii wuxuu ahaa qorayay qofkii wuxuu ahaa saxeexayay qofkii wuxuu ahaa lahaa waalidiintan dhibaataysan ee carruurtoodu xanuunsanayso waa carruurtayada Amerikay ku dhasheen waa in cudurkan la baaro waa in cudurkan wax laga qabto waa in cudurkan serviceskooda wax la ilaaliyo wuxuu ahaa qofkii xitaa keenay dadka ka warhaya hadda Minnesota Department of Human Services inay autism qofku haygarayso isagaa lahaacay 2020 jeer Governor Pawlenty markii uu haystay isagaa lahaacay 2020 jeer Governor Dayton markaan u tegaynay wuxuu ahaa qofka Siciid I don't think not enough thank you for being part of. We support you, the autism community, without hesitation, without question, without reservation. Hada Somali hada iyo xawaabu hada waxa inta aan ka gubanayaa inta yar ee joogno sababtoo ah Siciid autism kaliya wax ma qabanin hadii Somali community of Minnesota markaan meel kaliya tagtay waxa noqonaysaa qof kaligiis qaylinaya laakiin markaan tagaado organization baa iga dambeeya community baa iga dambaysa PhD holders baa iga dambeeya dan waxaa noqonaysaa wax credible soo maaha waa lagu dhegaysanayaa marka way tallaayeen soo maaha Soomaaliya toosa habadkiina taageera aniga waa ila inaan ka maqnaano maanta community-geena inaga ina matalaayay inaan ka maqnaano meeshii aan codkeeda ku soconnay inaan ka maqnaano oo naloo barya dad kale inaan garaantiitaa isku hadlayna maaha waa inaan lacag joogtaa aan bixino inteena halkan fadhida I challenge you I dare you sharada idinla gelaya halkaas aan wada saxeexno min $50 iga bilow aniga bil walba Obama haddaan siin karno Siciid waan siin karnaa maanto jaalisiyaadu wuxuu tagay mahaday hal hada marka mahaday dhow tagay qofna arku waa la musduq waa laga cabsaday moogta laakiin aniga xoogaa sugaan la socdayo ka baqameyn marka dadku waxay qabanaan ogaan marka aadi bal meel yiraahdo abgaalo way qani hadii taas loo baxo waxa waaye waa dhow yahay laakiin ma la mari karaa bacaad baabuurta ma mari karo marka dadkii waxay leeyihiin tuqaadid ma noo sameeyo tuqaadid ha noo sameeyo anoo warsaay ay igu sina xaadaha yiri haloo soo shiray ina waa la soo shiray markii la soo shiray umuuqaata waqokore oo soo marna meel maaha daay umuuqaata duqa waa qosli wuxuu hadda baabuur hala keeno jid hala saaro على سميو سعيد نوع الكتب متقامي دبعته ومجاج ومباركة تبصر على عاولية يوث بشرية وحكستر وعقل يسا كلام يسا أفوتي إنرجي يسا وروح هي مثلا كرسة وروح مثلا وراشة معاوية عليك
يقولي ماشي وكان ليس أسمع الجوش وهذا يقولوا يرجع برجع ولدي من الرسول كده بيقولوا هذا هو ويرجع ولا يبقى قاصا سليم يعني هذا يقول معه طبعا هذا الجواب responsibility أنه قادر إنه بالبالغ community confederation of Somali community of Minnesota وما زلت السلام عليكم ورحمة الله وعن ذلك Somali إن لا ينسى community الله يدعنا إذا كلام ومن مثل هذا برأي كل إنه إنك تشكرته إن الحاجة كبرته community الحاجة كبرته ما يسمع ما أنت هي كلامنا إن نرى بسوا community Somali وين أو حول بلد وتيم كانوا كذا أو تبقيال أن هي كلامنا مرة رجال سقف سيرس كنافة تناه Somali سوتشيس سعيد طاري حتى نجيب في عام Somaliya إنه صار عندهم علينا بعد سلة بسير فارق يتذكر مثلا ما أقصد كملنا مينيسوتا ما مجرد إن كوميونيتي ونكسن أو أيوه أنو على الروتين لو واحد بالدلالة أو واحد بالله إنه رول الشبور ستة سلام عليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. dad fara badan oo diyaar oo rag iyo dumar wada aqoonyahan iyo tacliimiin iyo dhalinyarada ayaa ka hadlay aad buu mahadsan yahay. hadda waxaan malaynayaa marka caawan laga hadlayay wax qabadkeedii ama plaankii ama actionkii baa hadda soo gaaray oo ah okay community-gan caawan soo amaanayay inuu fiican yahay ka soo hadlaynay wax qabadkiisii baa rabnaa marka oo ficil ayaan hadda sameeyay muhiimadu waa inta waxay sheegeen khiyaartii hore hadashay community-gan ilaa asaasay 1994 marka haddana waxaan joognaa 2012 ka dhamaanaya marka meeqa sano weeyaan ya marka 18 sano ayuu community-gan service ama khidmo ama shaqo u soo hayay jaaliyadda Soomaaliyeed ama jaaliyadda East Africaanka ah ee gobolka Minnesota ee gobolada Kureeno joogta 18 sano waxaan rabaa inay saxan dadkii aad iga soo reeyay soo qaybaha intooda badan joogay ma maqlin hadda ka hor confederation oo intay dadka isugu yeereen yiraahdeen war lacag baa idinka rabnaa hana kaarnay وأمرك هو الرئيس أنا أروح مقلة يوميا أنا think إنه تأمرك هو الرئيس يعرف هذا القاعد ده تأمرك واحد في السنة إذا هذا سدير يتوصل خدمكم سوق قبلين هذا سدير يتوصل خدمة سوق ودني هذا سدير يتوصل خدمة شغل سوق هيني ذكر عن شغلي كانوا يدوروا سوق قبلنا هذا أنت هذا شغال ولا كم خاتك عين أنا خبر الأوجه أنت أنا وحيد ويدين ما أنت عدام وحيد ويدين الظروف باقي أنت وحيد ويدين يا where's our part where's our contribution where's our responsibility where's our accountability too أو إنك كيف تاني أو أنكم واحد رجعنا نقول الكلية بروح receivers أما takers ده تقول قاطع بس واحد لما قاطع إنها نقول بروح givers ده له خطية فهذه community قالوا لنا هو إنه يجمع إنه واحد أو كهر جاي إنه ورانا نوصل إنه أنت إيه إنه ما قرنيش مركو وبعض السيرفيس يخدمنا إننا قبلنا أكشن ترى مركب وبعضنا أكشن ترى يعني بعضنا أكشن بلان كان واحد دورية قف كسوق ما يشوف عليه it has to be part of that إنه قيد كله قف كسوق ما يشوف عليه سأل at least السبب ده إنه كذا بين الحياة كم يتناول دوري إذا أنت كلنا أم ربيتر إن شاء الله تعالى خمس سؤال يا واحد كان بيننا كهرس أورش كنا كهرس عنيا والأرض كم مركا شعور الشيء مركا سبعين سبعين كان مركا بالخليسة وحنا نجار وحنا طريقة وحنا سبعين سنة سنتك وحنا بعد هاي أو كردش
level for example weya marka application one direct within 4 weeks waxaa laga weli waan ku afiya kuwa xabsiga ka soo dayay ama xabsiga uu ka caawinaya ama uu ka caawinaya xataa qofka kale muhimka waxaan rabnaa confederation inay masaajidda u geysaan codsi إلى كان بين العاوي إن العاوي واستب يتلاوك عليه قضى الطعوم سنة كسر قبل الفقيات رجال صومالي أحدينا مؤسسات كاملة organizational إنه نسمعين نوع نسمعين And thank you for inviting me tonight. It's great to be back here in the Ryan Soil Community Center. I used to represent this area maybe 15 to 18 years ago. So I just wanted to say that I came to stand in solidarity with you. I have great respect for Saeed Hamdia and all the work that he has done so many years here in this neighborhood. And I wanted to just pledge again forward to you. And I just came tonight to say I make a small personal contribution, but I also want to work hard to try to see if we can get some legislation that would back up, provide some of what the Ryan community waxa inaan ogaado waxyaabaha ugu muhiimsan ee u baahan yahay inaan u sameeyno confederation ama ururka. I know it is especially important for the youth, and that has been one of the messages that you have given me, and I am very interested in trying to figure out what we might be able to do in terms of youth jobs, youth recreation. This facility needs to be expanded. All of those kinds of things we need to try to start working on this in the legislature, and I want to work with you on this. waxaan doonaynaa dhinaca xeeldejinta inaan kala hadalno waxyaabaha ugu muhiimsan ay taabato waxaa ka mid ah dhalinyarada siyaadaha dhalinyarada maaragta lagu sameyn lahaa hawaayadaha ama meelaha lagu sameeyo waxa loo yaqaano ee ay ku tababar qaataan taasina waa mid aad iyo aad muhiim u ah hadhootana aan doonayno wixii aan laisla qaadaadina inaan u gudbina dadka xeeldejiyyaasha And the really good news is that the Somali community played a big part in this last election, right? You played a big part, you got a lot of people out to vote. We know that, and we're going to try to return our work for you at the legislature. So I'm just here to say that to you now. Please continue to develop that grassroots political power. Thank you. On behalf of the Confederation, thank you for coming here tonight. I think my sister Idil was very much curious saying, where are the elected officials who represent us? Where are your friends? And I can tell her that someone is here. So someone is better than nothing. So she has shown that she is willing to help the community and work with the community. There are many more who have attended this event. They're living in action. So we will have to give that message to them and say, this cannot happen again. This center that we are in here is not run by the community for the community. It's run by everybody. And I think the reason why we will not support any legislative process of investment without the voice of the people who live here. That's the critical missing point, and today we are announcing that we are seeking the funds. The community will stand together and fund the project to expand the Ryan One Center as long as the legislative process practically includes the ownership and run by the community. If we don't run it,
We don't have any community center. We cannot run a youth center right here. We cannot run any education process right here because of the process run and the political process that exists in this neighborhood. Enough is enough. It's time to change the process. We have to send a message to the capital, to the city hall. We have been too fast getting go further. This year, the Democrats, the governor is a Democrat, the House is a Democrat, the Senate is a Democrat. If we don't get anything, we are going to abandon the DFL. Otherwise, we can forget about it, including the city hall. We will always support the opposite council or support someone who is kind of ideas and initiative together. Sorry for this. I think that we have to stand up together, and I believe if we stand up together, we will win whatever issue that we have. Thank you so much. Confederation of Somali Community. Kini halkaa gaadho micno keliya it doesn't have another one answer. Macnahaas waxa weeye Confederation of Somali Community waxay ka turjumaysaa waxa dadka Soomaaliyeed yihiin. Wax kale sheegaysa? No. Waxa aan nahay, tabarta aan nahay, dadnimada aan leenahay, inayna waxba ahayn baa dadka ay ka turjumaysaa. Marka, it's very sad. It's very sad. Dad boqol qof ka yar ee halkaas soo fadhiisato niraano Somali community the Confederation of Somali Community baan ugu tagaynaa aan niraano. It's very sad. dadka meeshii oo dhan oo mahadnaqaya dadkii lacagta bixiyey walow si gaar ah u mahadnaqay kulligii lacag baa bixisay marka waa idin mahadnaqay. But I want to also mention Sharif, our Imam, actually did the most for us, and I want to thank him. I want to thank the elders, Adi Yusuf, Somo, Ared. Thank you. No, like Somali cultural and yes.